أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بمهله ومركلي برنامجكeenii aynu ugu magac darnay xaq dhowr xalqadiisii lixaad oo aynu kaga warrami doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xaqa iyo xuquuqda ay isku leeyihiin labada qof ee lamaanaha ah. Islaamku waxa uu ku dadaalay calaaqada iyo xiriirka ka dhaxeeya labada qof ee lamaanaha ah inay noqoto mid aad iyo aad u xoogan. sidaa darteed ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayay xiriirka iyo heshiiska labada qof ay wada gelayaan inuu ku tilmaamay miithaaqan ghaliidha, heshiis la adkeeyay. sidaasoo kale Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay labada qof ee lamaanaha inuu dhexdooda dhigay almawaddatu warraxma, kalgacayl iyo naxariis. sidaa darteed ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo yeelay intaas oo xal oo camali ah si loo damaanad qaado ama loogu dadaalo in ay noqoto mid istimraar ah oo joogto ah xayaatada lamaananimadu ama nolosha lamaananimadu. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jeclaaday dadka ka shaqeeya qoysaska isku dhaca iyo kuwa aan isku dhicinba sii jiritaankooda. waxaan u cadhooday oo nacay dadka ka shaqeeya inay kala tafriiqiyaan ama ay kala geeyaan labada qoys ama qoyska labada qof ee lamaanaha ka kooban. sidaa darteed ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhirul cilaaj ama dawada ugu dambaysa marka xal kasta la waayo waxa uu ka dhigay ama uu ka yeelay talaaq. idan هذه الحياة الزوجية إلهي سبحانه وتعالى wuxuu inoo sharciyay xuquuq fara badan oo labada qof ee lamaanihiiba ay isku leeyihiin. waxaanad moodaa runtii markaad eegto qoysaskeena in xuquuq fara badan ay dhexdeena ay ku dayacan tahay. xuquuqdaas oo Allihii rasuulba ay noo jideeyeen in la ilaaliyana ay lagama maarmaan u tahay sii jiritaanka qoyska. macnaheeduna ma aha in labada qof aanay isfurin laakiin nolosha ay ku wada noolaanayaan waa inay noqoto nolol naxariis, jacayl iyo is-ixtiraam ku dhisan oo aan ku dhisnayn nolol is-caburin iyo isla ficiltan iyo is-colaadsi iyadoo haddana daa'iradii guud ee lamaananimada ama qoysnimadu ay jirto. bal waxaynu xalqada tan kaga warrami doonaa xaqa uu ku leeyahay zawjku ama aabuhu hooyada, ama ninku uu ku leeyahay gabadhiisa ama dumarkiisa. waxaynu u soo horreysiinaynaa xaqa ninku uu ku leeyahay inkastuu ka weyn yahay oo uu xaq weyn uu yahay haddana uu ka soo urursan yahay marka loo eego xaqa iyo xuquuqda gabadha ay ku leedahay ninkeeda. xaqa uu ku leeyahay ninku gabadhiisa waa ay fara badan yihiin. waxaa ka mid ah kow xaqu zawji calaa zawjati wa min acdami alxuquuqi bacda xaqi illaahi tacaala. waa xaqa ninkuu ku leeyahay xaaskiisa, waa xaquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray haweeneyda kuugu waaweyn haddaynaan odhanba waa kuugu weyn marka laga yimaado xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. xadiidka imaamu axmed iyo nasaa'i ba ay soo wariyeen, imaamu albaanina uu tasxiixinayo, waxa uu rasuulku ku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahy laa yasluxu libasharin an yasjuda libashar. uma habboona oo uma cuntanto qofna inuu qof kale u sujuudo. walow salaxa libasharin an yasjuda libashar. haddii si ay dhici lahayd inay u habboonaan lahayd inuu qof kale u sujuudo xaqa uu ku leeyahay darteed, in sujuudda waxay tilmaamaysaa xaqa iyo xuquuqda la isku leeyahay intuu leeyahay weynadeeda darteeda. la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha. waxaan fari lahaa haweeneydu inay ninkeeda u sujuudo min cidami xaqihi calayha, xaqa uu ninku ku leeyahay haweeneydiisa darteed. allahu akbar. ninku xaq aad iyo aad u weyn ayaa uu ku leeyahay haweeneydiisa ama xaqa uu ku leeyahay waa mid aad iyo aad u weyn. laba, qawaamada iyo hogaaminta ama maamulka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka yeelay inuu ninku hogaamiyo ama qoyska uu hogaamiyo. وك إلهي في القرآن الكريم كجوهرمية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم قوامضة أما هجامنت أما maamulka waxa iska leh ninka ama qofka raga marka qoyska la eegay daacatu zawji wal qiyam bi huquqihi yuqaddimu ala daacati al walidayn wal qiyam bi huquqihima hadii ay timaado xaqa uu ninkaagu kugu leeyahay ama xaqa uu ninku ku leeyahay haweenadiisa iyo xaqa waalidku ay ku leeyihiin gabadha la qabo waxa la horeysiinaya xaqa uu ninku ku leeyahay weynida uu yahay darteed إمام أحمد أيا وحا تلمامي أو كلها هوين من لهيد في امرأة لها زوج وأم مريضة هويدت أو حنسنسة ضاعة زوجها أوجب عليها من أمها إني نكذا ديعضو أيا كوين أما كهر ريسة إني هويدت أيا ديعضو مركا وحق ونكو كليه أنت وليه درتيت أداء حق الزوج طريق لأداء حق الله إني هوين ذو قدتو حق وزوجكيغو كليه أما ننكيدو كليه وحا الطريق أما وضو تهي إني قدتو حق إلهي سبحانه وتعالى وكليه حديث ابن ماجه وسورنا إمام الباني أو حسن كوكت الماميو وحا رسول كليه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه وحو رسول كليه صلى الله عليه وسلم هوينينا مقودا حق ربكيت إلا أي قدتو حق زوجكيت إلا هدو ننكيدو كدلبو آني نفتيدو ديدي قضب كشنات أداء حق الزوج من أسباب دخول الجنة إن حق ننكا وكقوليه آد قدتاه وحي كمتاي أسباب تجند لغوكلا وحو رسولك صلى الله عليه وسلم كداري أسباب تمركو سو تريني قبضو هذه إلا تمادو إني جنada جلسو وحكمدها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي الأبواب شئت وحو رسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم أولي هدي هوينيدو أما قبضو أي تكتو شنتيدا salaadooda faralka ah bisha soomka ah ama rabadaanta ana ay soomto xubinkeeda taranka ana ay ilaaliso zawjkeega ama ninkeedana ay adeecdo waxa lagu yiraahdaa waxaad ka gashaa albaabada jannada ka adoonto Allahu akbar wa fadli aad iyo aad weyn qodobka lixaad ama xaq lixaad hadii uu ninku u yeedho gabadhiisa baahidii firaashka ugu yeedho oo ay ajiib weydo yadna waa dambi weyn ba ku dhaxsa marka xuquuqda ay ku leedahay xuquuqda uu ninku ku leeyahay xaaskiisa waxa kamida in ay adeecdo marka ugu yeero firaashka hadii aanay jirin hada halka u fiirso hadii aanay jirin wax darar ah oo keensanaya tacadur ama cudur daar inay u hesho waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firaashi ninku ugu yeedho haweenaydiisa firaashka oo fa abada tiido فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح waxay habeenka waa bariis waagu sida ugu damaa ama habeenka ugu bariya ilaa waaga fajirkiisa la gaarayo iyadoo ay dusheeda tahay caro alle malaa'igtuna ay lacdanayso qodobka ama xaqa toddobaad waa luzuum baytiha fala takhruju bighayri idni zawjiha inay gabadha gurigeega joogto hadii ay baxsana idan la'aan aanay ku bixin ninkeyga ay weydiisato إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كوت المامة أولي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخر الآية وفي سورة الأحزاب آية صدن يصدح إلهي وحاوت كوت المامة أو الدمر كليه قرقين الشوغة حديثة إلى عضو إن أدبرناك هو بحضانا هاوبن بحين أو هاو بحين سيدي جاهلية أي سمين جليه إنه كتغان هوغي يأسترنانتي يحجابكي يحييه يحشوتكي عائشة رضي الله عنها يدنو حيلادهي حديث كم إمام البخاري ومسلم بيسوريين فقلت وحن قول رسولك الله صلى الله عليه وسلم إذن لي إلى أبوي أي في الخروج وحد رسولك الله إيقلاتا إنان أتقو لبضيد والد قالت وحيت لي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما
inaan khabarka bal ka soo yaqiinsado ay ahayd waqtigaasi sababta aan ugu baxay labadayda waalid fa adina li rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahayna waa ii ogolaaday in aan baxo qodobka sideedaad عدم التطوع بصوم إلا بإذن زوجها إناني هوينيدو صوم سنة إلا زوج كيدو لأقليه أما أقلادي مو يعني رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كبخاري ومسلم بيسورينا وحاو كتل ما موليه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه قبرنا وما هبونا أو ما بنانا إني صانتو يدو زوج كيدو جوغو إلا أوهدنا soomkana waa soomkii sunnaha ah waxa kamida qodobka sagaalaad ama xaq sagaalaad inay gabadhu u ilaaliso zawjkeeda marka uu ka maqan yahay nafteeda iyo beedkeeda iyo gurigeeda intaba waa kii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay haweenka wanaagsan ee kamid ah sifaadka ama tilmaamaha ay leeyihiin fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi bima hafiza Allah wa qaar wanaagsan oo rabbigooda adeecaya oo waxa qaybka ama zawjkoogu kaga tagayna oo ilaalinaya Ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu faray ilaalinaya suwarka ama qaababka ay leeyahay qadiyadaasi ah xaafidaatu lil ghaybi bima hafiza Allah waxa kamida kow inay gabadhu nafteeda ilaaliso oo aanay dagogolaaf sameyn ama cid kale aan xiriir la yeelan arinta noocaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku tilmaamay saddexda qof ee aan waxba la iska weydiinayn arrinkooda ee kamid ah dadka halaagsamay waxa kamid ah wamra'atun ghabat anha zawjuha waqad kafaha mu'latu dunya fatabarrajat ba'da marka waa arrin khatiira jiddan waxa kamid ah xifdiga iyo ilaalinta maalka iyo hantida waana ku tasarrufin ila idankiisa la tunfiq wa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam حديث كاسي كنت المامي لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إن أنا هوينينا أنا مالك إيا هنتذا نكيدو إليه هاي أنا وحبك بحن إلا وقلاضي وحكم إذها إن أبتك إلى لس وسيدو قفي عن أيو بربارس إذن ولا ليال شريعة وحين نقدكتي إني قبل عاصدو زوج كده بغير حق لأهن haddii ay haweeneydu caasido zawjkeeda waxay helaysaa qodobadan soo socda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga meelay waxa kamid tahay inay gabadhu adeeci weydo ama ay maqli weydo zawjkeeda min asbaab dukhul an-nar asbaabta naarta lagu galo xadiiskii mashhuurka ah Imam Bukhari iyo Imam Muslim ay soo wariyeen ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay uu lahaa waxaan arkay manzar aan weligay arag maanta ka hor inaad noqoteen dumarow kuwa ugu gelitaanka badan naarta ama kuwa ugu badan ee naarta gala markii weydiiyeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ahaa in ay dafiraan ihsaanka iyo wanaaga uu sameeyo zawjkooda waxa kamid ah sabab fi adami qabul salatiha inaan salaadeeda la aqbalin hadii cisyaankaas ama amar diidadaasi ay timaado nolosha qoysnimo laakiin waxa shardiga ku xiran in ay bighayr xaq tahay xaq darro hadii laakiin ay xaq tahay waa khatar hadii laakiin shay dulmiya uu doonayo Ilaahay waa diic ma soconayso waxa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam thalathatun la tuqbalu minhum salatan ولا تسعدوا إلى السماء ولا تجاوزوا رؤوسهم وذكر منهم وحكمدها وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عنها قبر ونكدي انتو يردي يدن ديد وحكمدها سبب في غضب الله عليها إن الله سبحانه وتعالى وعرضه هوين ذنين كذا عاصدة وحقه وقوليه كو عاصدة حديث كي أن يصوم مرنمر كده وطوله أيا كمدها يا رسولك صلى الله عليه وسلم وتلمامي والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها إلهي سبحانه وتعالى وعرضه سبب للعن الملائكة لها ملائكتنا وإن عدلسا هدي أي أمرك أما حق زوج كذا يكسر بحويده أو يعاصده حديث كان الناس آخرين أي الدليل إذا ولا ليال حق وننكو كل يهي قبرديسو وحق إلهي رسول كيسو أي نوت المامين علمدنا في الفقه أي كجورهمين أي كبل بلاريين
waxaan naftayda iyo nafihiinaba ku waaninaya kuna baraarujinaya in haweenweynaha muslimiintu ay ku dadaalaan inay ka soo baxaan xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray oo ah inay zawjkooga ama ninkooga adeecaan si nolosha qoysnimo ay u yeelato macaan iyo dhadhan noloshuna ay u noqoto mid haadi ah oo degan ubadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu arsaaqayna ay u noqdaan ubad ku soo barbaaray jawi iyo xaalad haadi ah oo degan inahaas baynu kusoo gabagabaynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxkam wabillahi towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق